بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. waxaan soo bandhigaynaa insha Allah gabayga la yiraahdo Suldaan. waxa weeyaan gabay durxul ah oo nuxurkiisu qarsoon yahay bulshadana af shareeran kula hadlaaya. inkastoo gabaygan xambaarsanayn xujooyin madaxdaalisa oo la garan waayo, aniguna aanan ahayn abwaan xeel dheer oo guntintiisa la furi kari waayo, haddana maansooyinkaygii hore wuxuu kaga duwan yahay ujeedadiisu ma qaawana oo si waadixa uma wada xoog tira. gabaygan Suldaaro inuu ka hadlaayo waxyaabo soo socda oo uu sii odorosayo, inuu dhaqamada iyo akhlaaqiyaadka bulshada wax ka taabanayo, iyo inuu siyaasad ka hadlayo. inagu sheegi mayno bulshada sheegi, marka waa fallaadhe cirka loo tuuray nin walba, laakiin kullay waaqic jira ayuun buu khuseeyaa. waxaase la yidhi calool la qofi doono maxaaba looga qoonqoonbin ee aynu gabaygii soo gudbinno. wuxuu yidhi axmedow, su-aalaha dar baan suuragal ahayne ma ka samo qabtaa lama yidhaa sayma ruux galaye, waayahan silsilad baa igu xidhan laysu kay sudhaye, siniqsigiiyo baaxaadagiiseeto dabarkayga durbo boqonka seedaha leh iyo suulashaay go-ane, saqbarhkaan tallamayaa markuu suuro aadmiguye, hadba waxaan la soo salalayaa sahiyo beerqaade, intuu sabankan hiinkaaga jiray saakin maa noqone, sanka lay dalooshiyo rarkiyo suudha lay mariyey, sirgad laygu dhabanaaniyaa iiga saayidahe, wax saraanta laygaga hayaa seeftii doqonilay waa sokeeya hadisho ma laha saaxiibe, sanbabada waxay kala jartaa kii nafta u siday. waxyaabahan aan sheegayo iyo cabashooyinkan aan soo gudbinaya wax aniga guuleed ahaan i gaadhay maaha, laakiin dhibane madluuna oo uu gabaygu afhayeenu yahay ayaan dareenkiisii cabirayaa oon matalay. sinday taladu leedaye haddaad dhan uga seeraarto, marmarbaysi dalag meel dhudhuba kaaga sibiqdaaye, anoo hadalkii suugaaba qoray sadarna aan dhaafin, sifaha maanta leedahay arrini waa sidoo kale. dadkii saado duubliya waxgarad waa ku sugukuun, in gabraarka salabaysatoo sumuc yalaan nool, waana soobir caydh oo ma laha sarac adduunyaade, sadna kuma qabaan cagajabkay milicsawaalaane, sayan iyo dhulbay gorayaan xagga iyaga waa sakaaradae, waxaan sar iyo duud laga jarayn, saawir loo tumaye anoo hadalkii suugaama qoray sadarna aan dhaafin, sifaha maanta leedahay arrini waa sidoo kale. in bidaaristibiq noogu timi haw sidiiqina, soomaalida ku maahmaahda bidaaristibiq bay kugu gashaa, laakiin anu waxaan aaminsanaya inay bidaartu dhowr nooc tahay, oo midna kugtaasuunbay kaaga dikataayoo halkaa madaxay ka samaysataa galaal, kaase madaxa intiisa kale ku fidaa, midna food horaada iyo maxay tahay timaha wejiga xiga ayay soo goosataa, marka dambe waxaa la ka qaybshaba. markaa bidaartu waa dhowr nooc. marka waxaan leeyahay in bidaaristibiq noogu timi haw sidiiqina, markay timaha salabeel ahayd waa la saaciday, salxanyaha dhafoorada galaa saami ku lahaaye, waana sahanka madaxa ugu dhacay suuldhabaaladuye, anoo hadalkii suugaama qoray sadarna aan dhaafin, sifaha maanta leedahay arrini waa sidoo kale. dad salaada wada oogayo suuban baa nahay. meerisyadani waxay sawirayaan iimaam dad jamaca salaad tukinaya, laakiin iimaamka qaladka uu salaada ka gelaya aad buu u fara badan yahay. markaas salaadu qaybay leedahay oo taagni, rukuuc, sujuud, atixiyaad. iimaamkan isaga halka lagaga dhacay waxa weeye taagnidii uu salaada ku xidhay unbuu doonayo inuu kaga baxo, ma rukuucayo, ma fadhiisanayo, ma sujuudayo. hadduu rukuucana taagnidii unbuu dib ugu noqon. qofka uu tukanaya ka dambeeyaana subxaanalladay hayaano way qaylanayaan si ay qaladkiisa u xusuusiyaan, laakiin safafka qudhooda qaar ba aamusan, kuwa isaga xiga way aamusan yihiin oo maba hadlayaan. markaa dad salaada wada oogayo suuban baan nahay, iimaamku goortuu sahwiyo waan sabaxanaa, in la saxana wuu diidan yiyo weli sujuudii, haddaan sawd cadduu dhaga barjayn waa la sara joog, waxse taa wax laga saarayaa waa safka u xiga way sahashadaanuun, wuxuu seegan yahay farale
anoo hadalkii suugaama qoray sadarna aan dhaafin sifaha maanta leedahay arrini waa sidoo kale. sabaan buu habeed geela iyagu sawracu lahaa. soomaalidu waxay tidhaahdaa geelu hadduu labada dambe habeed ku leeyahay waa ged lagu yaqiin, hadduu labada hore ku yeeshana waa geduu la soo baxay. markaa waxaan leenahay labada horuu ku yeesha. sabaan buu habeed geela iyagu sawracu lahaa. sansaan lagu gartana way ahayd sabadinkuu yaal. dhaqankiiyo sunnii lagu ogaa sula haddaan eegno sanka kagamay ooliye shafkiiyo suul horaadada sibrihiiyo intaa sharaxyaday kaga sibaaqnayde iyo hadduu labada low saaqay madaduunyadu sax maaho beryahan sanadkaa wataye caado hore maaha sulubeeye anoo hadalkii suugaama qoray sadarna aan dhaafin sifaha maanta leedahay arrini waa lexda salowday naysha u sidkani gelisayso nolosheenii horee miyiga idiiyoo daaqaaya kambalka ayay laxi horatay casarkii. neef naylaahoy laxdu dhashay baa guriga ugu xidhan. laxdi markay horatay sabeen weynoo idaa la joogto oo laxdu horu dhashayna laxdiba iska daba carartay. sumalkii idaha ee wanka weynahaana labadii laxaada isdhalay ayuu isaguna u wehelyeelay oo iska daba cararay. inayntii yarayda idaha la joogtay ayaa mahadho reebtay oo waxay tidhi laxda la garayo nayl baa u xidhan way ku cararaysaa. sabeentana laxdaa dhashay oo hooyadeed bay raacdo. laakiin sumalow maxaa ku wada iyo salbabaq bay ti lexda salowday naysha u sidkani gelisayso haah waana sabada kama foofadaa soogan xeraduun. kuwan daba saqlina waa banaar siidh wadaag leleh. midna waa sabeentay dhashay oo waa saddexankeede salbabaq iyo kuu kibir wadaa sumalka weeyaane anoo hadalkii suugaama qoray sadarna aan dhaafin sifaha maanta leedahay arrini waa sidoo sanqadhaha qalbigu diidayee laga saliiliyoodo subax noolba waagii baryay noola socotaa. waan sirisirqownaa mar baana lagu saaqaa hadba waxaanse waxankeed maqlaa sawdka dhiilada. haddana saani baan u xamilaa saacadaha qaare anoo hadalkii suugaama qoray sadarna aan dhaafin sifaha maanta leedahay arrini waa sidoo kale. sandareero waa lagu hodaa saciyo weyshi waxaana sacab muggii kaaga taga sabi carruureed. labadaba sadkood waxaan ahayn lagu sabaaliye. salsalna lagu maaweliyo heryo nala saariye marna sicirna lagu baayacayo saylad nala geeye anoo hadalkii suugaama qoray sadarna aan dhaafin sifaha maanta leedahay arrini waa sida. afar dumara kii simi lahaa saabihaan qudha midunbuu sibraarka u meliye suba ka buuxaa. saddex midibadhan u yaabantaa seexan waa dileeye haddayse sabir ka gaashaan dhigtaan sugan xaqoodiiye. saadaasha waxay eegayaan samiyo liibaane iyana saaci gurigeedu qabay saamaxaad ma lehe anoo hadalkii suugaama qoray sadarna aan dhaafin sifaha maanta leedahay arrini waa sida. sandalad maamushiyo soohay xadhigeeda waxaan haatan kala saydhintiiyo suuska loo geliyey. sadqo beladu kaagama tagtee waysal dheer tahay. sirta hoodane lala maagayiyo dabinka loo seesay. saakadanba meel daran dar baa loo saguutiyey. saganta loo tirinayay sabab u waayeene darna sida siqiirkoo kalea loo sasabayaaye. nina wuxuu saluugaba warmuu samayda haystaaye. rag markay cadaaladisintuu soof wadaag yahaye isma sabaro buuxshaan intay kala sarreeyaane. haddiise suxulka leefka iyo nimcada loo saldhigi waayo ka subxaanallaahiya marbay suuri qaraxdaaye. iyadoo ardaa loo sallaxay socoto reer hooyey xeeryaha sabiidiga ah iyo solay la iidaamay godol saayir laga soo lisiyo gog iyo saytuuxa oo weliba saatiyo hadhuudh sixinle loo raacshay. surrin iyo nin maanxumi mar buu suququl moodaaye. soor cunidda qaarkeed marbay saxasho keentaaye. mar buu saxar ilyare kaaga dhacay sanac ka beermaaye. sallax labada low lagu maraa wuu siblanayaaye. saar bilayay qoyskaba mar baa lagu simbiidhaaye. siyaadu awrta waa u halis inay maraysa seegaane siti qabaxdan waa lagu dhuldhici. saadinta masada sarbeebtiiyo murtidu waa u subeeciyade. haddaan saafo hadal waa mergiye way sargacayaane. waxaan sogordoh ararta uga dhigay inaan sarriibtaaye. runtaasi xunu sheegow mugdiga lagu siraadaaye. waxba aniga iyaan laysirxine saaxibaan ahaye. idinkaa biyii sare tegow laydi sugayaaye. niman yahow surmiga reerka furay so iyo ceelgeeye. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.